waad mahadsantahay cabdiqaadir runtii shir arrimo muhiima go'aamo muhiima ay ka soo baxeen ayuu ahaa waxa ugu muhiimsanaa in lagu heshiiyey in dardar la geliyo lana sii wado hawsha la dagaalanka khawaariijta oo kow ka ahayd tan labaad oo ah guulaha laga soo hooyey deyn cafinta in iyana la sii wado haddana meel dhammaad ah sida lagu sheegay lana og yahay gaarsiisan iyo arrimo kale oo kolba hoos u dejinta nidaamka iyo isku xidhka dalka gudi ahaanba laakiin arrimaha ugu hadalka badan ee dadku aad uga munaaqashayn doonaan usbuucyada nagu soo socda cabdiqaadir oo waxa ugu horeeya hindisaha la soo jeediyey ee kow ah in doorasho hal qof hal cod ah la qabto muddada ay madaxweynaha waqtigiisu dhammaanayana 2026 in wax laga bedelo nidaamka fulintu ay maanta tahay oo ah madaxweyne iyo prime minister oo loo guuro waxa hadda loo bixiyey nidaam xisbi ah oo madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen sida Mareykanka oo kala marka labadii shakhsi la wada doorto xisbi ahaana loo wada doorto isla markaana ay labadii qof dooni wada saaran yihiin ee waxaan kolba isku dhacaya iyo inay is-eriyaan aynu ku soo baranay waxa kaloo iyana runtii muhiim ahayd oo la rabo inaynu iyana hoosta ka xariiqno in doorashooyinka dowlad deegaanada iyo degmooyinka la qabto iyo banaadir iyo muqdisho oo iyana sanad gudaheed juunteeda 2024 iyana laga hirgeliyo doorasho hal qof hal cod marka arrimo aad iyo aad xasaasi u ah ayaa doorkan ka soo baxay waanan u qorfayn doonaa laakiin waa arrimo aan u malaynayo dadka inta u badan inay soo dhaweynayaan waa tahay markii aad akhrido dabcan qodobadii ka soo baxay shirka ee warmurtiyeedka iyo mid loo dul istaago gaar ahaan arrimaha doorashada oo kale oo diiradda la saaray in 2026 la qaban doono doorasho qof iyo cod waddanka la gaarsiin doono iyo arrinta waddanka in laga guurayo nidaamkii ra'iisul wasaaraha oo loo guuri doono madaxweyne ku xigeen bal arrimahaasi markii aan eegno maxay soo kordhin karaan waxay soo kordhi horta nidaam muddo dheer ay Soomaaliya ku soo dhaqnayd oo madaxweynaha ra'iisul wasaaraha ahaa ilaa intii xornimada la helay ayaa laga guurayaa nidaamkaas meelana uu ka fiicnaa meel qaarkoodna dhibaatadiisa ayuu iska lahaa gaar ahaan inta dalku burburay dhibaatooyin badan baynu ka soo aragnay haddii lagu heshiiyo in nidaamka madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen loo guuro ku xisaabtan cabdiqaadir waxay noqonayaan sida bayaankan warkan ku cadna in xisbiye la furayo laba xisbi ugu badnaan dalka ay ka howlgelayaan marka laba qof oo isku xisbi ah ayaa madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen u wada cararaya isma eri karaan haddii aanu madaxweyne ku xigeenku aanu iska casilin shaqada sida hadda kolba inta loo yeedho laga takhaluso prime ministerka taas ma dhacayso waxa weeye tigirkaasi ku wada qoran yihiin guushana way wada helayaan guuldaradana way u sinaanaysaa marka haddii ay ku heshiiyaan xoogaga siyaasiyiinta Soomaaliya in nidaamka loo guuro waa nidaam ku dhaqma sidaan sheegay Mareykanka oo kale oo kow ka ah ayaa ku dhaqma haddii labada qof markaa intay guuleystaan madaxweyne ku xigeen ay noqdaan oo dabeecadoodu marka dambe isnoqon weydo waa wada jirayaan ma kala tagayaan mid ma eri karo ilaa intay waqtiga dhamaysanayaan haddaanu mid iskiis isku casilin marka runtii waa ta kale ee soo guuraysa soo inoo soo arrintan ku soo biiraysa waxa weeye haddii laba madaxweynaha wax ku yimaadaan dhibaatooyin ama cudur ama howlgabnimo madaxweyne ku-xigeenkii ay tigirka ku wada carareen waxa keliya oonan hubin in isbedelkan cusub ee maanta soo baxay ay xoogaga siyaasiyiinta Soomaaliya oo dhan ku wada heshiinayaan sababtoo dadka qaarkood baa ku dootami kara arrintan waa arrin dastuuri la bedelay marka in nidaamka
loo bedelo loo mara ayaa ahayd idinkana waa dooda bal dhowrka cishe ee soo socda ayaynu u fadhinaa laakiin waa waxay ummadda soomaaliyeed sugaysa gaar ahaan arrimahan doorashada iyo hal cod iyo hal qof iyo in dowlad goboleedyada oo caajisay awoodana si aan la arag ugu fadhiistay bal in ayna jaanis u helaan in ay doorasho toos ah oo ummaddu codaynayso iyana ay galaan waa tahay markii aad eegno arrimaha amniga oo kale waxaa aada looga hadlay la dagaalanka argagixisada iyo sida istaraatiijiyadda lagu waajahay oo aada loo bogaadiyey ballankaasi ka waran markii aan eegno horta runtii marka laga reebo maalinta dhow ee hujuumka ay kusoo qaadeen qolada argagixisadu saldhigii ciidamada ugandisku ay deganaayeen ee artisam ka tirsanaa guulo waaweyn ayaa ilaa imika laga soo hooyey orod baanay ku jiraan qolada al-shabaab sidaad ku ogtahayna maraykanku doraatoole anigu voice of america qaybta ingiriiska waxaaban siiyey interview ama waraysi arrintan ku saabsan wuxuu kasoo saaray cunaqabatayn xoog leh in lagu soo rogay argagixisada ragga gacanta lacagta u haya bayc mushtarka la macaamila iyo dadka ay wax ka gadaan ama wax ka iibsadaan oo qaarkood xataa dubay xafiisya ku leeyihiin marka taasina waxay keenaysaa in xaggii lacagta ay shabaabku ka helayeen iyo lacagihii ay kala wareejinayeen iyo dadkay la macaamilayeen muqdisho gudaheeda iyo magaalooyinka soomaaliya in iyana hadda kadib dambiilayaal uu ka dhigaya maraykanku xagga ciidamada iyo militariga waad ogtahay huwanta soomaalida ee ka kooban saddexda xooga dalka macawisleyda iyo qolada adduunka kasoo gurmatay ee soomaaliya caawinaysa intuba inay hujuun adag baryahan ku hayaan xoogaga al-shabaab dib u gurasho iyo orod badanna ay galeen marka runtii haddii jidka ay dowladda xoogageedu ku taagnaadaan oon naqaska laga furin oo jidkaa la haysto waxaa rajadu noqon kartaa in aada looga adkaado al-shabaab si waqti dhowna gacan sarreyn buuxda ay xagga dowladdu hesho waana wax badan waa arrin ay ummadda soomaaliyeed aada u soo dhoweyn doonta haddii arrintaa la gaadho waa tahay markii aan eegno dabcan arrimihii amniga ayaan ku guda jirnaaye dabcan waxaa jiray kulamo ay yeesheen waddamada safka hore oo ay kaga hadleen qaabkii iskaashi buuxa looga yeelan lahaa ciribtirka khawaarijta al-shabaab oo saameyn ku leh gobolka bal muxuu soo kordhin karaa iskaashigan cusub ee dalalka safka hore runtii de wax kolaba cudud aan hadda lahayn oo kolaba soo biiraysa oo soo kordhaysa laakiin walaal cabdiqaadir oo la soco dhowr iyo labaatankii sane ugu dambeysay marka aynu dib u fiirino natiijada kasoo hooyatay dalalka safka hore waxna waa la oran karaa way hagaagsanayeen waxyaabo badan oo ummadda soomaaliyeed gocanaysana way iska jiraan marka runtii qiimeynteedu weli 100% miiska ma soo saari karno hase ahaatee in dowladda soomaaliyeed ay la wareegto amniga 100% amniga ay la wareegto oo weliba ay hub hesho sida hadda aynu arkaynana wasiiru khaarijiyaha soomaaliya uu dalka ruushka tegay loona ballan qaaday hubkii ay qaramada midoobay inaga cunaqabataysay laga yaabaa in ruushku wax noo furo qoladan cidda keliya ee ka adkaan karta ma aha dalalkan safka hore ma aha ajnabi waa ciidamo soomaaliyeed oo si fiican u qalabaysan marka haddii ay ummadda soomaaliyeed helaan meel u furaysa hubka iyaga ayaa ka fiican dalalka safka hore oo runtii meel qaarkood ay dadka badan aaminsan yihiinba inaanay wanaag la rabin ummadda soomaaliyeed dalalkaas waa tahay ugu dambeyntii arrinta deyn cafinta bal ka waran iyo dowladda marxaladihii kala duwanaa ee ay soo martay gaar ahaan markii aan eegno hadda xilligan oo marxaladii ugu dambeysay ee shanaad ee deyn cafinta ay ka gudubtay soomaaliya bal maxay soo kordhinaysaa arrinkan cabdiqaadir horta waxay arrintani tusaysaa dalka soomaaliyeed inuu god madow ka soo baxay waa kow laba in dowladda soomaaliyeed ay awood u leedahay in dishibliin ama astaamaha loo qoondeeyey deyn cafinta oo runtii jid adag ah inay kasoo bixi
sanadba sanad ha isku dhiibo laakiin way dalka jaarka la ee xooga weyn ee Ethiopia la yidhaah weli iyagu kamay soo bixin. taasna waa arrinta labaad in aynu tusnay adduunka in laga bixi karo oo Soomaalidu ay discipline ka yeelan karto. marka taa laga yimaado deyn cafintu waxay Soomaaliya u furaysaa lacaga badan oo ilaa 2 bilyan oo dollar ku dhow oo isugu jira deeq amaah iyo gargaar. halka dalka dib u dhiskiisu wuxuu u baahan yahay lacagta adag iyo maalgelintaas oo runtii hadda miiska saaran. waxaan rajaynayaa waqtiyo dhow in ay dalka lacagtaasi inta sanadkan 2023 ilaa bilowga 2024 sanadkaas in wax ka soo gaarayaan lacagaha xoogga leh waa lacaga geli kara xagga caafimaadka, waxbarashada, dib u dhiska magaalooyinka, amniga iyo adeega dalka oo beeraha noqdaan, webiyada ha noqdaan. marka runtii dib u habeynta iyo dib u dhiska Soomaaliya lacagtaas haddii loo fasaxo oo hadda u egba in loo fasaxayo rajo weyn ayay dalka gelinaysaa. waana arrin aad iyo aad